السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان أصحابتك وحران جنالكينا وانوضا سلامي. رمضان مبارك. maanta cashirkeenu waxa uu ku saabsan yahay DHCP. Shalay cashirkii koray waxaan soo qaadanay IP address sidoo shaqeeyo. Daba cashirka maanta waxaan ku qaadan doonaa DHCP. DHCP hadaba waxay muxuu qabtaa sidoo shaqeeya. Yani intaas oo dheer geli mayno kaliya waxaan qabanaynaa inaan sameyno DHCP si fiican loogu fahmo. So theory waxa fiican practical ahaan loo qabanay. Marka ugu horeysa router baan soo qaadaynaa, then switch baan soo qaadaynaa, switch baan soo qaadaynaa, kabacdi waxaan soo qaadaynaa 3 computer ilaa 2 computer baa iska dheh 2 computer xarig baan kusoo xidhanaa, xariga kan automatic aan ku xidhanaa, kan automatic aan iska xidhanaa. waxaan sameynaa hadaba marka xiriga joogno inaan IP address ku dul qorano. kan server bino noqonayaa oo kii DHCP ga qaybinay waa server bino noqonayaa. IP address kan siinna waa 192.3.168.10.0 kaasaan isticmaali doonaa network guud u isticmaali doono waana server kii kan noo ahaanaya router. routerkan soo galayaa marka ugu horeysa si fiican u aragtimo dhinaca yar durqiyo si configuration ka fartu yar yar taamalaya si farta waxa si fiican loogu arkaa soo weynaysiyo. shaytaan baad u kordhi shaytaan baa iska caadi wallahi. Okay sax soo galnaa hadaba routerka inka si fiican baa loo wada arkaa wareejinaya. enable baan config inta gigabyte interface ka soo kaxayna inta gigabyte 0/0 IP address kan siinay muxuu noqonayaa IP address 192.168.10.1 ma siinay maadaama geediga salmaaskiisuna 255.255.255.0 kabacdi enter baan odhanayaa no shutdown. interface kan soo kaxsaday interface markuu green ka soo noqday maxaa fiican sameynayaa inaan DHCP iska sameeyo accept baan odhanaynaa. waxaan odhanaynaa IP DHCP waxaan DHCP pool marka name baa la baxsanayaa. nameka waxaan bixinaa tusaale ahaan gelo kale gelo network baan siinaynaa network network baan ku xidhan odhanaynaa network 192.168.10.0 baan siinaa maadaama networkii guud yahay 255.255.255.0 enter. kabacdi marka xagga joogno default baan odhanaynaa. default router wuxuu qaadanayaa 192.168.10.1 default router ahaan gateway-gii. halkaa markaan joogno DNS server baan odhanaynaa. DNS server baan odhanaynaa 8.8.8 ayaan odhanaynaa. kabacdi saas waxaan ku sameynay DHCP -gii. kabacdi markaan intaa sameynay waxaan sameynaynaa inuu computer walba automatic u qaato DHCP gaan ayana. DHCP waxaan codsaneynaa requesting DHCP successful. DHCP ga successful aan helno in la siiyay computer kale aan aadaynaa inuu isna DHCP ka qaato. DHCP ma odhanaynaa oo automatic buu isna soo galay. intaad sameyn lahayd inaad DHCP soo sameyso inaad static ahaan gacanta ugu geliso xalkan ku qorqorto inaad static ahaan xalkan u geliso tiraaho 192. maxay intaad odhan lahayd adoo DHCP ga baad requesting baad siisanaysaa. DHCP ga requesting marka lagu sameeyo DHCP successfully DHCP ga saasaan ku helnay oo IP address baan helnay salmaaskiisa baan helnay
gatewaygiisa waan helnay, DNS serverkiisa waan helnay. Haddaba sida qaabka u shaqeyno waxay noqonaysaa waxoogaa yar oo halkan theory ahaan aan ku darro. DHCP serverkii markaan routerka kusoo sameyn clientina uu inoo yahay computerkeeni. Marka koowaad client maxaa soo diraya discover buu soo diraya, kan discoverkii marka hore wuu gareynaya, requesting buu soo diraya, waa acknowledgeable waa lasoo aqbalaya. Kabacdi marka lasoo aqbalo waxaa la sameynaya wuxuu odhanayaa hey new network oo kale tusaale ahaan network cusub baan ahay, wuxuu codsanayaa DHCP server baan sameynay maaha, wuxuu codsanaya IP address server mask gateway waxyaabihii oo dhan broadcasting buu sameynayaa inuu DHCP broadcasting sameeyo. Kabacdi wuxuu u dirayaa computerka DHCP serverka wuxuu qaadanayaa MAC addresskiisa oo MAC addresskiisa u diraya. Waa MAC addresskiisu sending MAC address markuu diro ayaa receive your packetkaaga waan helo ayuu DHCP serverkii baa ahay packet gareynaya. Markuu packet gareeyo wuxuu usoo dirayaa officerkii inuu soo siiyo IP addresskii, inuu soo siiyo server maskii, inuu gatewaygii soo siiyo. Kabacdi markuu intaa soo siiyo wuxuu qaadanayaa kan wuxuu odhanayaa I like your officer requesting addresskiisa yani sida u dhacayaan. Requesting buu usoo diraya, requestingka markuu soo diro kan database DHCP-ga ku kaydsanaa ay computerada hore wixii dhan ku kaydsanaa ayaa la siinaya computerka cusub hadda kusoo biro acknowledgeable waa la aqbalay. Processorkan saa iskugu dirayaan waxaa loo yaqaanaa Dora process baa la yidhahdaa, oo Dora micne waxa loo soo gaabiyey Dora sidii markii hore halka hore kusoo aragnay discover, offer, request, acknowledgeable. Maanta intaasaan ku daynaa cashirkeena haddii Ilaahay idhaaho. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.